بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعند وضياش قدرنتا iyo qiimaha inaga mudan ee Allah ku xiran channelkan YouTube-ka Ismaaciil Aqeela ku soo dhawaada barnaamijkeena aan kaga hadlaynay qisooyinka Qur'aaniga ah maanta insha Allah ta'ala qaybtiisa koowaad waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa qisadii asxaabul fiil ama maroodiga qaybtiisa koowaad ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa maanta hadduu Rabbi weyne raali ka noqdo ka hor intaan barnaamijka gudagalin fadlan walaal haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar si ay dhiirigelin inagu noqoto like ta saar barnaamijyadeena haddii aad ka heshay share garee si dad kale ay ugu faa'iideystaan gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka koowaad ee hela waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan ku soo baahino ama aan ku soo gudbino mar walba qisada maanta aan idinkugu qaadi doono sidaan aan ku soo qaadan doono sidaan hore idinkugu sheegayba waa qisadii asxaabul fiil ama maroodiga ninka la yiraahdo Abraha ayaa ahaa madaxdii Yemen u matalayay boqorkii Xabashida Abraha wuxuu horay u dilay nin Xabashida u fadhiyay Yemen oo la yiraahdo Arbaad intaanu Arbaad dhiman wuxuu Abraha madaxa kaga dhuftay seef oo Abraha ku beelay isha iyo sankaba sidaas darteed Abraha wuxuu ahaa nin sanla oo illa sidoo kalena gaaban oo madow kolkuu Abraha ka taqalusay Arbaad ayaa waxaa carooday boqorkii Xabashida ee u matalayay kadibna Abraha ayaa warqad u soo diray boqorkii Xabashida isagoo leh boqorow wuxuu Arbaad ahaa adoonkaaga aniguna waxaan ahay adoonkaagi waanan ku adeegi doonaa ee i howlgeli kolkuu boqorkii Xabashida walaaligelinta ka helay Abraha ayuu faraha ka qaaday oo uu u magacaabay madaxa Yemen Abraha isagoo raba inuu raaligeliyo boqorka Xabashida ayaa wuxuu dhisay kaniisad weyn oo aan horey loo arag wuxuuna u bixiyay kaniisadda Khulays oo ku taalay magaalada Sanca Abraha waxa kale oo uu doonayay inuu indhaha Carabta ka jeediyo xajka ay u soo xajiyaan magaalada barakeysan ee Maka Carabtii reer Yemen ee Xabashida gumaysanayeen markay maqleen in Abraha dhisay kaniisadan ayay ka caroodeen kadibna nin Carabeed oo careysan ayaa ku gutay xaajadiisa gudaha kaniisadda barnaamijkeena maanta qaybtiisa koowaad halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaa halkan idinkaga soo jeediya anigoo ah Ismaaciil Aqeela inta barnaamijkan midkiis xiga aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.